ciidan baan qoray, ciidanka aan qoray qofna kuma aflagaadaynayo, qofna ima diidi karo. waxa waaye meesha waxaa yimid oo aan ciidanka ka qoraayay dad ama ila ama gacan maqan tahay ama lagu maqan tahay oo naafa ah yaa yimid. waxaan u sheegay dadka noocaana inaan ciidan loo qori karin, wax kale ha jirto, laakiin ciidan looma qori karin. intaa ma ila garan. waa gartay, laakiin dadka qaar waxay sheegayaan inay dadkaasi ahaayeen dad u naafoobay qaranka iyagoo hawshiisa wada. dhegeysaade ninkii qaranka u naafoobay meeshii ku naafoobay buu joogaa. hadda shaqa raadis ma aha. intaa ma garatay. waa gartay. ciidanka ninkii u naafoobay oo ciidan ahaa ama military ahaa ama cusbuud ahaa ama boliis ahaa, waxay dhintay waa dhinteen. wixii nool meeshii ay ku naafoobeen ay ciidan ka yihiin, ciidankaasiga ahaana shaqada lagama eryin. wax jiro weeye warka aan kuu sheegaayo. dadkaanu dad shicib ah weeye, ama ilbuulaya ama lug oo meeshana yimid oo raba inay ciidan qortaan. anna waxaan u sheegay qaabka noocaana ciidan looma qori karo. taa waan u sheegay. tan kale waxa waaye qofaan anigi ku aflagaadeeyo aan idhi maxay ahayd adiga il baad la-ada lug baad la-ada hebel baa tahay laguma qoraayo aan ku erina ma jirto. sida diistaas waaye nidaamka jira waxaa waaye nin illa ama lugla ama gacanla lama qoraayo. sida aan u hadlay waa saan. ciidanna kama bixi karo. dadka noocaasa wuxuu ka bixi karaa hay-ado kale hadduu yani wuxuu aqoon u leeyahay lagu qoro. hay-ado kale yuu macnaha yani shaqo laga siin karaa. ma laga yaabaa idinku inaad ka gaabiseen inaad markii aad shaacinayseen shaqadan aad dadka u sheegtaan shuruudaha lagu xidhayo? shuruudaha waa sheegnay. goortii wax laga qoraayo aan dhignay waa sheegnay. ciidankani sidiisaba qoritaankiisa lama baafiyo. ciidan haddaad aragto la qoraayo waa sir weeye. sir dawladeed waaye. dawlada ciidan ay qoranayso intaas saasaan qoranayo wakti hebel sida badan ma tiraahdo. ciidanku waa la sheegay goortaas in ciidan lagu qoraayo, waana la qoray. qaab baana lagu keenay, qaabaal badan baa lagu keenay. marka mana la rabo qof naafa a lagama rabo oo ciidan ma noqonayo, qof nooc kastaba ha ahaado. marka dadka waxaas warwareejinaya waa dadkii jiri jiray saan qiyaasayo oo magaranaysa yani maxay ahayse wanaagdiidka ayaan u fahmayaa, beensheega ahaan u fahmayaa. qodobada kale soo hadal qaaday waxaa kamid a dadka da-dooda. waxaa tihi qofkii da-diisu weyn tahay ciidan lama qorayo. ninkii aada u yaro da-yar oo da-da in askari loo qoro yani nidaamka adduunka diidaayo sharcigaa ka yaali. ninkii yar ciidan uma qorayno oo qoritaanka askarta yani qodab diidaayaa jiri. da-da yar kii weyn oo waayeel ana ma qoranayno. maxaa la dhahayay oo waayeelana ma qorayno. ninkii hadda eryaan ana ciidan looma qoray. ciidanka soomaaliya sharcigiisu muxuu dhigayaa qofku da-da markuu imisa sano jiro ayuu howlgab noqon karaa? nidaamkaas waa nidaam sida waa nidaam dawladeed, nidaam jiro adduunyada ka jira weeye. soomaaliyana keedana ayaduu khaas u yahay oo ma garanaysa ayuu u yaalaa. hadda waa 20 jir iyo 50 jir midna kuma dhahayo. asbaabteeda waa saas. waa tahay, laakiin dadka qaar waxay leeyihiin taliyaha laftiisu waa qof da-weyn oo waayeela, marka muu isagu ciidanka u baneeya dhalinyarada? anigu da- baan ahay waa run. laakiin dawladaydaa shuqul ku leh. xilligii shaqada yani da-daa tahay ka fariiso la yidhaahna waa ka fariisanaya. doorna uma qabo. ninna ma dacweyn doono, ninna kama been sheegaayo. hadda ma kuu sheegaya da-daan